aniga marka raado xirsi shalay kulmiyaan wadahay Britain meel baan ugu balqayaa aniga cirro 20 sano intii bacaaladkii dawladda reero kala wadahay maanta intayna badbood saaran meel tagaysa Britain marka anagu saxaabada islaamada oo walaalayaal isla waxaynu ku jiraa sanad doorashada waynu qaanaado cartankeeda leedahay isu cubridkeeda leedahay sawaxankeeda leedahay buuqeeda leedahay xilka nabadda iyo dulqaadka iyo dhageysiga iyo dabaco dawladdu saaray madaxweynuhu saaray anna waan ogolahay mar haddaan anagu taa ogolahay oo ilaa intii sawaxanka oo gudoomiyaha guurtu sheegay mar walba aan u gacan hadino leeyahay walaalayaal isu keena albaabkuna wuu noo furan yahay halka madaxtooyada qaranka ka dhaxaysa ka mid baatiin leed kama xigo kaalay waxeena aynu dhamaysanay ayun baan la taaganahay haddana waa la taaganahay ilaahay iyagana qalbigooda taa tusaan waa rabto marka hore waxaan u mahadnaqayaa odayaasha isxilqaameed damqaday ee madax dhaqameed leh ee culimo leh ee aqoonyahan leh waa waqtigoodii laakiin maxaa la isu ergeeyaa haddaanu leenahay fagaaro walba waa isu keeno kaale haddaanu leenahay wada hadalkeenu ogolahay haddaanu leenahay haddii sharci la isku qabto qodob la eego bal ciddii hawsha ay naga lahayd nala eegto dee waxay naga qasan garanba maayo sababta aan u leeyahay waa isu keena waxaan u leeyahay qolo waliba sibay wax xalaysaa markay mashkaad dhacdo Soomaalidu dhaqan bay u leedahay soo jireena waxa weeye Soomaalidu sida dawladaha kale imka yiraahdaa waxa la bartay cilmi conference la yiraahdo loo gar qaaday raali galiya la isma yiraahdo Soomaalidu markay wax dhacaan cid ay saysa waa loo yeeraa deetana waxa la walaalayaal waa hadlo waxa garan weydaan noo sheegay iyaga isku horeeyay deetana way isla cartamaan way doodaan waxa ay ku margadaan baa cid kale loo sheegay markaas ciidaas u farsamaysa anagu tiibaan haynaa war kaalay inaga isku horeeyna aynu wixii waa hadal halkeenu ku margadno aynu cidina ku horreeyno dadkana inaan argagax gelin arwar hayeenaa ka sasin dadkana inaan deedin dadweynaha mid baan leeyahay waxaan baxaya ee idaacad ka dhageysataan ee siyaasadda la isku qaylinayo la buuqayo colaad hamoodina war imisa shalay wax diidanaa imisa kala xisbi ahaa ayuun baa haddana aroortii laabta isa saara oo waa siyaasadda soo wareega waxaad adigu maxaa u culubsan dadweynuhu maxaa u caytabaysaan maxaa ilaa awoweys qorigaas ku qaadanaysaan aniga marka raado xirsi shalay kulmiyaan wadahay Britain meel baan ugu balqayaa aniga cirro 20 sano intii bacaaladkii dawladda reero kala wadahay maanta intayna badbood saaran meel tagaysa Britain marka anagu saxaabada islaamada oo walaalayaal isla waa dadweynuhu yaan waxyaalaha artanka siyaasadda iyo xamaasadda riyaalayna culaysiina taana soo riyaalahay waxaan ku dhameynaa arintaana walaaltiin waanu ka diyaarnahay cid walba ergaaba way soo dhaweynaynaa waanu isu kitaab furaynaa waxaan ku qaldanahay mar walbana canaanta dulqaadka in la garaaco dee odayga reer ku maale mar haddii madaxweyne la ixtiraamayo oo nin walba fadhiga ka cayo isla waa inuu qaataa in la garaaco la qaado oo joog oo waxaas aan ku leenahay oo adigu wax walba qaado diyaar baan u ahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin dhammaan Soomaaliland hambaliyo hal qodob